السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواده aniga waa saaxiibkeen Jilaan Cali Mucuu Kamara waxaan soo qaadan doonaa qodobo ay kamid yihiin kulamada la ciyaari doono weegan iyo kulanka furitaanka tartanka heerka labaad ee degmada Balcad oo maanta la ciyaari doono sidoo kale koox waxa jirta kab aad u weyn 45 ugu jirto kooxdaas waa soo qaadan doonaa naadi hore u sameeyay malaha نادي هذا كدب سمين دون مشي كرني لكن هدي جيران نادي وحسبي وسوشي دون لكن نادي جالس وحواي عمامة دولة بنان كاسي أطالع بعد أنا جوا صاحب كين جلان علي ميو كمارا أنكو بلابة ترتن كهير كلاوادي دقمة بالعض يا ما أنت ده فرقي سوحو كدي عدونا دكتور أيوب استاديوم ما أنت يان لده فوري دونا وحن لقود ده فوري دونا لبكو أورنتي مركز إكتو كبوينتا aan camaamadoodi inaba markaas la heesan karin naadiga Samtuna oo sanadkan ku soo guuleysatay heerka saddexaad ee degmada Balcad wacdara aad u weyn ka soo muujisay tartanka heerka saddexaad ee degmada Balcad sidoo kale waxa wada ciyaari doona gaadiidka oo ayadana wacdara aad u weyn ka muujisay tartanka heerka labaad ee degmada Balcad gaadiidka ayaana sidoo kale waxay kamid tahay kooxaha kuwa ugu tunka weyn markii loo eego heerka labaad kuwaas oo runtii guulahooda ay aad u fara badan yihiin guuldaradoodu way yar tahay iyo sidoo kale Samtuna oo Ferisida wacdara ka soo muujisay tartankana soo daftay ayaa wada ciyaari doono waa kulan aad u weyn waa kulan xamaasadiisa runtii ama xiisihiisa ay aad u weyn tahay oo aan la qiyaasi garin lama hor dhici karo kulankaas wixii ka dhici karo waxa waaye lama hor dhici karo kulan weyn waa labada kooxba waa diyaarsan yihiin Samtuna waa is diyaarisay gaadiidkana waa is diyaarisay balaayriin oo runtii aad isdhihi karto wallahi waa kuwa markaasi xirfadooda aad u sareysa ayana wataan labada kooxba waxaan rajaynaynaa labada kooxba inay soo bandhigi doonaan ciyaar aad u qurux badan ay ku riyaaqaan dhamaan bulshooyinka ku nool degmada Balcad waayahay kulankaas iyo wixii ka soo kordha caawa waka tartankan fardis xogaa waa jiri doonaa saa u maleynaaye laakiin lama hor dhici karo kooxaha dhan way is adkeeyeen waa diyaarsan yihiin sanadkan waa ka adag yihiin sanadkii hore marka ma lagu degdegi karo ma la dhigi karo koox hebel waa waxa waay ma la leefsan karo laakiin markay wiiga koowaad nin kasta kulan koowaad oo ciyaaro kadib waa la ogaan karaa kooxdii markaasi la dhigi karo niyo kooxdaas galab waa lagu fardhin karaa markaas la ogaan doonaa group A group B group C group D wow waxba ka dhacay intaba waxaad moodaa inay diyaarsan yihiin aadina u diyaarsan waa kuwa aad isku diyaari markaas group A waxa ku wada jiro gaadiidka Samtuna Rajo iyo sidoo kale Kulmis ayaa ku wada jiro waraa jiri doona wiish kale yar sidoo kale group B waxa ku wada jiro Jayo Ceel Geele iyo sidoo kale Xabatako iyo Hanlay waa group asigana camaamadiisa aan la yeesan karin group C waxa ku wada jiro City Boys iyo sidoo kale Jamhuuriya waxa sidoo kale ku jirto Koshalis ayaa sidoo kale kamid ah kooxaha markaas group C ku wada jira iyo Muriyaale iyo Muriyaala ku jirto sidoo kale waxa sidoo kale ku jira Isgos waana groupka kaliya ee 5 kooxood ay ku jirto meeshaas hardan yaala 5 kooxood ayaa markaas groupkaas ku jirta group C waana groupka runtii groupka dhimashada la dhihi karo groupkaas waan arki doonaa group D sidoo kale Balcad Telcom iyo sidoo kale Badbaado iyo sidoo kale Hoggaan waxa sidoo kale ku jirto Ilays afartaas group waxa waaye warkaas lama gali karo baabkaas lama gali karo waxa waaye afartaas group waa kuwa camaamadan waan arki doonaa kulamada koowaad ee labada ciyaari doonana waxa kamid ah Samtuna iyo gaadiidka oo ciyaari doona oo maanta lagu dahfuri doono waxa Birito ciyaari doono ii sheegay Sabtida ciyaari doono Jenyo iyo sidoo kale Ceel Geele waxa sidoo kale wada ciyaari doono Axada City Boys iyo Jamhuuriya City Boys iyo Jamhuuriya ayaa wada ciyaari doono waxa sidoo kale ciyaari doono kooxaha loo yaqaan Balcad Telcom iyo Badbaado waxa sidoo kale ciyaari doono Rajo iyo Kulmis wali ciyaara taale meeshan sanadkan sanad ay ka aragtay inay isbiidi inay jirto u maleynaya groupkana waxa waayahay waxaadna moodaa weegan oo dhan kulmo oo saas la ciyaara saas isku adkeen weegan waxa waaye awow wara jiri doono marka Xabatako iyo sidoo kale Hanlay waa ciyaari doontaa Koshalis iyo sidoo kale Muriyaale waxa sidoo kale ciyaari doono Hoggaan iyo sidoo kale Ilays isbuucan waxa waaye marka wara jiri doono kulamadaas oo camaamadan ayaa isbuucan la ciyaari doona waxa jirto koox runtii kab weyn ugu jirto 45 abuul la geystay Jolob koox waa hal koox waa
kooxdaas koox la mid ah haddee jirto commentiga waa kusoo sheegi kartiin laakiin kooxda keliya ee skoorka weyn dhigatay yacni waxaa maqli jiray ulaa boodka lagu soo suuriya maqli jiray dadkaas waxa waaye kooxdaas ulay kooxaha kale boodka usoo suuray kooxaha ka ciyaara eeda kooxaha ka ciyaara biida kooxaha ka ciyaara siida intaba waxa waaye ulaa boodka loo soo suuray sababtoo kooxda keliya ee hal wiig gudihiisa koox leela joogaya laba koob waa daf la siistay waa lagu guuleystay laba koob hal wiig gudihiisa lagu qaaday waxa kaaga sii daran wiig kala koobkii waxa la dhigay oo biida la dhigay dhac waa la dafay laba wiig gudaheeda abo saddex koob la heestaa kabtaas gabwe moohe amaamadaas ma la heesan kar banaanka taala abo yaa horay u sameeyay oo saddex koob laba wiig gudahooda ku guuleystay waa kooxday haddii macnaa ay jirto waa hore u dhacday waa noo sheegi kartiin commentiga waa nogol wadaagi kartiin laakiin ani ma arkin mago ani ma arkin koox labo ishak laba wiig gudaheeda saddex koob dhab waa la dhigay dhab ma arkin hore muu arkin haddee jirtona waa nala wadaagi kartiin waa noo soo sheegi kartiin kooxdaas waa raadsan oo sanadkan wacdara aad u weyn ka muujisay tartanka heerka labaad ee degmada Balcad raadsanay waa noolaysaan saddex koob abo dhac koob laba koob hal wiig gudaheeda lagu qaaday laba koob waay hal wiig gudaheeda laba koob lagu guuleysay lagu qaaday inta la marooya abo soo koobka la wato waa la marooya waa la wataa waa la wataa saddex koob abo laba wiig gudaheeda la qaaday yaa sameyn karo haddee jirto koox hore u sameysay waa sheegi kartiin hadda kadib in la sameeyo doono ma sheegi kar laakiin ka weyn waa dadaal u baahan tahay aad u weyn u baahan tahay laba koob oo munaasabad 26 June ala dhigay abo rab waa la qaatay raasan yey waa loo tagay koob kale la qabtay oo ii sheegay kooxda luuliya la qabtay waa loo tagay koobkii kale tartankii socday oo biid ahaa la qabtay yey waa loo tagay saddex koob abo laba isbuuc gudaheeda lagu qaatay yaa sameyn karo koox sameysay hore u sameysay hadee jirto nolol wadaaga laakiin kooxdaas kabtooda iyo camaamadooda anaga banaankaas u dhigay kabweyn waay 45 waay lama gashan karo camaamadoodan lama heesan karo mar hore ku tuuray aniga wax waay rajaa iga heesata dhihi maayaan jiraani cali macu iga heesata warkaas la dhihi maaya waa ku tuuri camaamadu waa ku tuuri raasanay camaamadu waa ku tuuri aragno naadigiino waa dhici kartaa in hore loo sameeyay hadii la sameeyo waa kaas wana loo wadaagi kartiin sidoo kale waa taaganahay FC Bull waa u taaganahay waxa waaye waa dareemi kartaan barnaamij sameeya diyaarinay barnaamij marka diyaariso oo si aad u diyaariso waxa laga yaabaa inuu sidii micnaa ku noqo waa laga yaabaa oo adoo barnaamijka si u diyaarisay waxa waaye hadalkii iyo wixii aad diyaarsatay laga yaabaa inaad sheegi wayso marka FC Bull waa u taaganahay waxaan leeyahay asxaabta afwan ay leeyahay waxa waaye waxa talagal uma dhicin waxa waa dareemi kartaan qofka binaadam waaye wax walba dhici karo marka FC Bull waa taaganahay koobkiina ma heesto hal mar ku guuleysadeen Balcad Star ka qaadeen waxa waa camaamadiina camaamad la heesan kara maaha banaanka idin taala abo saaxiibkii Shilaan Cali Macu Kamaaro idin dhahayo Soomaaliya Sports hormar leh